naagaha nimanka maxay u guursadaan lacag ya hoos waxay rabtaa qamaarkeeda kabii u eg inay hesho ragga maxaa la sheegay dumarka waxaa la yiri rabidda halka dhinacaas ah way kaga badan yihiin meeshana waxa ka imaato conflict dagaal badan ka imaado lisma fahmaayo ninkii waxaan uu rabaa wax Ilaahay ku abuuray qofta dumarka maxay rabtaa in la fadhiisto la kolkolin iyo qof maxaa la sheegay xanuunsan miskeenaya oo wax rabo no isma keenaysa meesha maxaa ka baxaayo kolkolintii cause qofkan is hot yani like hormones kiisa maxaa la sheegay wadana ka cinayaan Soomaalida nahay guryaha Soomaalida waxay u badan yihiin inay dadka isqabeynay isfuraan ama waxay u badan yihiin dadkii wada noolaa inay farxad ay haysan maalooba madaxa laga qabta naagti ninka meeshan uu ka calaayo dadkii wada noolaa oo Ilaahay yiri Ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay liyas markii la qof is aroostaan liyaskunu Ilaahay ina ku deganaansho iyo xasilooni ina ku heshiin example aan sinaya nabi sallallahu alayhi wasallam yaa ku dayanaa qudwa xasan yaa noo ah role model kan yaa qofka aan fiirsano haddii aan dhaka waran nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka arkayo romance la fuusanay maxaa dhaysiin waxa mustaxiil waxa leeyaysiin waay nabiga waxa jirtay markuu u sheegay uu rabo inuu meel aado duulaan ha noqoto masax kala ha aato dumarkiisa wuxuu u tuuri jiray qorituur malda qorituur uu sameyn jiray xasiskiisa mid kamid ah araac jirtay xaaski ma xasuusto iga raali hada laakiin waxa la yiri geelka markay ifuulayso waxa la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu fadhiistay garabkiisa intaqana ee ku fuushay geelka ninkas baan aadana maanta sameeyay waxa la yiri kan cadaanka xataa ku dhahay romance aqana ma intuu fadhiisto ma yeela garabkiisa la fuulo fiiriya bal subhanallah intuu la eegyahay fiir romanskaas jaceelkaas uu tusinayo waa meel public maybe wala arkay intuu fadhiistay nabiga sallallahu alayhi wasallam garbihiisa ay ku istaagtay ee geel ku fuushay subhanallah wax la leeyahay waa mustaxiila waxa loo baahan yahay ku dayano nimanka ma oga saas waa ina u sheegtiin sax okay mid kale waxa waa wax jacayl kale u baahan yahay waxa waa affectionate love waxa waa labada qof oo badan isheeg oo isqabo uu ka dhaxdhacaa in yani jacaylka uu qof ninkeeda uu qabo uu dareensiyo through touching ama haduu inuu taabto inuu shumiyo waxa soo kale waxa soo dhan waa ka xishana anaga dhaqankeena oo diidayo waxa uu qabnaa ceeb inta ceebta xagga joogtaa laba qof isqaba haday shumiyaan ilaa waxa sheegay qof xalaal uu suugu talagalay haduu xaaska ninkeeda shumiso mise ninka uu xaaska shumiyo maxaa dhib ku jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu maaday nin mar Carabi ah oo baalka sheegay baadiya markaas wuxuu ku yiri ma aqaan ilmihiisa ma aqaan wuxuu yiri waligeey ma dhunkan uu yiri ilmihiisa mid kamid ah ma dhunkan wuxuu yiri nabiga xariista waxa yara ka maqan uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tago intuu qabto Xasan iyo Xuseen ilmuhu uu yahay uu shumin jiray uu xambaari jiray jaceelka noocaas ah oo maxaa sheegay taabashada ah shumiska ah waa xalaal ah waa la isqabaa dadkan dad ilaahay isku xalaal iska dhiga waay waxaan ka hadlaynaa dad banaanka ma aha dad aan isqabin ma aha taas waa xaraan dadka isqabaa ka hadlaynaa haddii jaceelka noocaas uu ka maqan yahay waa is ogtihiin dadka inta la qabo waxa loo baahan yahay open inay ahaatid ninkaada waxana u gudbin kartid fariinta inta aan sheegayo in kamid inta ku dirtid xataa na u sheegi kartaa loo baahan yahay jaceelka nooca kale waxa waaye partial love ka waxa waaye jaceelka dhaxmar bahalka sheegay ninkii naagtis qabo haday tahay galmo labada qof binaadamka ilaahay waxa la sheeg xalaal iska qarigay way isku galmoonayaan ilmaha meesha laga abuuraa la rabaa waxyaalahaas oo dhan taasoo kale ma aha in isku tago maxaa la sheeg sida ninka ku helo ma aha waxa loo baahan yahay xuduud ay leedahay naagtu waxay leedahay rabid ninkana rabid uu leeyahay saa ogsoonahay naagta rabideeda ninka rabideeda ninka waxa la yiri rabidiisa soo hormarto tan naagta dambayso taas waxay keentaa dumarka inay maxaa la sheeg ku abuurto depression murugo ma sheegan karto ma dhigi karto aniga waxaan sheegay rabideeda taada soo hormarto tiyada dambayso waxa ka dambeeya 15 daqiiqo ii fuli ma dhigi karaa way nagu adag tahay haddana xalaal hadda tahay kabar wixii xalaashan ka cabsan waxa soo kale maxaa lagu sameeyaa ya rabidiisa markay soo hormarto waxa loo baahan yahay ninka inuu fahmo awish inay barnaamijkan nimankan ay maanta naga soo meeshan joogi lahaayeen fahmi lahaayeen rabideeda waxa waaye waxay ka dambaysaa la yiri 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay gaarto rabideeda hadii ay gaari wayso waxa imaanayo depression murugo yaa ku dhacaysa murugada ilmihi yaa maxaa sheegay dibka keensaday ninkii yaa dibkii maxaa sheegay lagu la dhacay ilmihi koob jabis cuniga hala dilo ay waa taagantahay waxaas dhan maxay ka imaatay haday jaceelka noocaas ee buuxo ee heli lahayd waxa laga yaabaa ilmaheeda inay naxariis u dareemi lahayd waxa laga yaabaa ilmihi maxaa la sheegay dilka ay ku dilayso iyo xanaaq ay kula dhacayso inaysan kula dhici lahayn love-ka noocaas nagu jira recreational love waxa waaye in activity la isla sameeyo in la isla ordo iyadoo la maxaa la sheegay meel oo privacy ah guriga kamid ah ama in maxaa la sheegay ninkii naagtis qabo ay isla qubaystaan swimming pool-ka
nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haduu nabiga waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haday wax xun ay tahay taariikhda lagu madari lahayn axaadiista lagu madari lahayn maxaa loogu daray in anaga ku cibra qaadano aan dabaqno waxa loo baahan yahay anaga maxaa nabiga wuxuu sameyn jiray aasmaysiina loo baahan yahay maxaa jiray maybe inay jiraan waa laga yaabaa laakiin inaag Soomaali ah wada cayaarayo ordaayo qaliil ma jiraan way yarihiin haday jiraan maxaa jiray waa dad yar farkuturisa ما جعلك نوع عسى حريرك لبده قف بنا نينك ناس كده حيسو وديسا وادكيا واحد جعلك نوع عسى واي لا انك غدبنو ما تمحيك لو جعش هي توك هذلك وهذا البدنتين هذلك وجعلين وحي جعلين وحي سو دريمان ان ما حد شيء غدبيان ما سوي كرتان هذا جدك خسارت وحي جعش ان شيكتو هذه ما حد لبا شمبر دغالسي عرفتو إن ترى لبا شمبر هاي دغالاي معنيه ما هو حيالها اسم حد شيء عمل إنها دهان معها لكن توقع واحد جعلين هذا البضي وحي جعلين وحيالها هذا محد شيء إنه كهلا دبكوده وحي جعلين إنه محد شيء هلان إيه ربع ناقة دمرك إن لمن قال الله إن الله ونحرسه وحيالها سكر أيها محد شيء نبي كتهاي هذا البضان مرة بان وحي بديه أكشن إنه وحي فعل سميان هذا الكأيجي محاوي وكذا جيه إنه حلو به هذا الكنا دارتين شيء إنه بديه هي حد وحكس حد الليهين عبان بحيل هان وحكس هدي حد كسر دافع محون نقده poison toxic محون نقده سن حد كده كبحد الله ما بان for example ninka uu xanuunsanaa maanta uu shaqeynayay gurigu imaaday hadal muu baahan wuxuu baahan yahay baxnaani wuxuu baahan yahay in la kulkuliyo wuxuu baahan yahay wuxuu rabo in la siiyo hada aad tirada ka war maanta waa ay maqreen wixii maanta aan arkay iyo wixii aan dareemay iyo wixii aan uriyay aan ku sheegay ka waran dibay leedahay waxa loo baahan yahay wax kasta in la balance gareeyo waxa la balance loo baahan yahay inagana waxa loo baahan yahay waxyaalaha jeceshiin in balance gareey kartiin waxay kala jeceshahay shoes kaba waay kabaha micnaheedu kama aha kaba kalina jeceshahay dumarku waxay jecel yihiin dharka camal shoppingka shoesku waxa laga soo qaato shoppingka dharka ay jecel yihiin no wonder loo dhaho naagaha nimanku waxay u gursadaan lacag ya hoos waxay rabtaa qamaarkeeda kabii u ag inay hesho nin faqiir ma laga helaa that's why naagaha Soomaalida maxaa jiray naagaha kale adduun weynaha ay ugu ordaan nimanka lacagta leh hadda maxaa maqlay sheeko Hollywood ka meesha hadda filmada lagu dhigo cadaanka waxa helaysaa nin faal xuma badan inaagtii qurux badan way israaceen way isgursadeen waxa lagu leeyahay iska helnay waxa laga yaabaa in waxay rabtay waxay jeclaad inuu siiyo uu fulfil gareeyay laakiin nimanka ayaga waxa laga yaabaa waxyaalaha qofka ku raacay waxyaalo nooc kale ka duwan inay noqoto sax shoes ka kaas ku imaanaya jaceelka lacagta in la jecel yahay dharka iyo waxa siiyo waxa ku soo haray they also love security amni inay amni helaan meel amni inay ku nool yihiin cause dumarka waxa waay sentimental waay waxyaalaha waxa sheeg shucuurtooda dhaawac u geysanayo ma adkaysan karaan waxay u baahan yihiin inay amni helaan amnigaas dumarku way jecel yihiin rag inay is ogaadaan loo baahan yahay ragga ma hayna waxa sheeg markay arkaan xaaskooda iyo yurka cararayso ila dhaha waxa fuliida maxaa waay no it's in them fulinimada iyo amnigaas inay helaan oo wax ku jiro ayaga waxay kale jecel yihiin also babies ma jeceshiin you know it's natural dumarka xataa maxaa la jiray mid aan dhalin oo shukaan saxta aan gaarin waxa laga yaabaa inay cunug garkay ay aragto diriskeeda ay soo qaado xambaarto kolkoliso chocolate u soo gudo wax siisiiso qoys waxa wax ku jira waa ilmiye jecel yihiin taas also respect in la xishmeeyo xishmada ma jeceshiin dadka ma xishmeeyeen iniga you know meesha respectiga waxa waa like waa wax adag waay respect darabta inaad ka heshid ninkaada waxa waa inaad isaga xishmaysid waay xishmada marka adiga xishmaysid waa heli kartaa wax kasta oo adiga adduunyada lagu hada imaanayo ku keenay hada xishmaysid hadaad inay xishmada ka heshid waa inaad xishmaysaa ila xishmada ka bilaawataa waay saafo saa u heshid xishmo